السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواء Kabe Online Academy aad uga barateen cilmiga IT iyo Accountiga halkan waxaan ku duubanaa chapterkeen labaad oo accounting cycle marka waxyaalaha aynu ku baran doono waxa kamid ah account sidoo kale debit iyo credit waynu ku baran doonaa waxaan ku baran doonaa sida journalka loo record gareeyo sida ledgerka post loogu sameeyo sidoo kale waxaan baran doonaa trial balancega marka ugu horreyn account soo qaadano haddaba korarka ama record gareynta increase-ka ama decrease-ka ku dhaca mid kamid ah asset-ka liability-ga annuity-ga revenue-ga iyo expenses-ka ayaa loo yaqaanaa account marka si fudud aynu sheegno haddii uu tusaale ahaan soo kordhay cash oo isna record gareeya cash-kaasi marka uu increase ku dhacay dan marka increase-ka aynu cash-ka oo asset-a record gareynano ayaa account noqonaya marka cashku waa asset waxa ku dhacay increase dan marka waan record gareynaa marka account suba cash leeyahay aynu furanaa marka account record gareyntaasi ayaa noqonaysa account laba erey kale ku xiga waxa kamid ah debit iyo credit debit waxa weeye left weeyaan creditna waa right debit waa bidix creditna waa midig marka account waxa lagu muujin karaa t account t يعني waxa looga jeedaa yani akoonka waxa uu matalaa xarafka t marka t akoonka markaan ku muujinano xagga sareysa waxaan ku qornaa account name-ka magaca akoonka wuxuu noqon karaa cash oo kale capital oo kale supply oo kale left side waxaan ku qoraynaa debit right side kan waxaan ku qoraynaa credit marka wixii debit ah waxaan gelin doonaa debit side-ka wixii credit side soo kordhana waxaan gelin doonaa credit side-ka okay marka debit iyo credit-ku waxa jira double entry system marka transaction ama dhacdo kastoo dhacda waa inay saameysaa ugu yaraan laba ama wax ka badan oo account ah si account equation-keeni ama basic account equation-ki ay u noqoto mid balance ah haddaba markay record gareynano debit iyo credit-ka ugu yaraan dhacdo kasta waa inay saameysaa hal debit iyo hal credit iyo wixii ka badan marka ugu yaraan waa inay saameysaa that's why marka loo yiri double entry system marka recording done by debiting at least one account so kale in credit la sameeyo at least another account marka sidoo kale debitka iyo creditku markasta waa inay ahaadaan equal debit must equal credit side if the sum of debit entries is greater than the sum of credit entries, the account will have a debit balance. Marka credit-ka transactions-ka dhacay debit-ka horta waan isku soo geynanaa transactions-ka dhici doona credit-kana waan isku soo geynanaa dan markaynu isku geyno haddii ay ka bataan transactions-ka debit-ku waxa uu yeelan doonaa account-kaasi debit balance tusaale ahaan oo kale transaction 1 $10,000 baa debit noqotay transaction 2 waxa credit noqday $3,000 transaction 3 na $8,000 marka markaynu isku geyno debit-ka waxay noqonaysaa 18,000 credit-kana 3,000 markaynu kala jarno dhanka debit-ka badan marka dhanka debit-ka balance-ga ku soo haraya wuxuu noqonayaa $15,000 marka waxa uu yeeshay debit balance ah $15,000 haddaba haddii uu ka bato creditku haddii uu ka bato debitka marka hore debitka badanayay hadda laakiin waxa badanaya waxa weeye waa credit-ka marka haddii uu creditku bato waxa uu yeelan doonaa credit balance baaqi soo haraya wuxuu noqon doonaa mid credit ah dan marka aynagno halka waxa inoo yaala transaction 1 oo debit balance oo $10,000 credit kala transaction 2 oo $3,000 iyo transaction 3 oo $8,000 inoo taala marka xaqaas waa $10,000 xaqaasna waxay noqonaysaa $12,000 haddii aynu kala jarno balance wuxuu noqonayaa $1,000 $1,000 waa credit balance okay haddaba asset-ko kale asset-ku waxa uu yeeshaa waxa uu ka kordhaa debit-ka waxaana uu ka yaraadaa credit-ka balance-ka uu yeeshaa ama normal balance-giisuna baaqiga soo haraya waxa uu noqonayaa normal balance-gu debit-ka marka si ay taasi u suurta gasho debit-ku waa inuu ka bataa credit-ka si uu normal balance-gu u noqdo debit side-ka
liability bay noogu xigta iyaduna waxa ay ka korodhaa credit side-ka waxaana ay ka yaraataa debit side-ka normal balance-geyguna waa credit-ka then markaas si uu normal balance-geygu u noqdo credit balance-gu waa inuu ka bataa debit side-ka marka normal balance-gu waa dhinaca increase-ku yani kororku ka jiro marka asset-ka oo kale waxa uu ka kordhayaa debitka normal balance-guna waxa uu noqon doonaa debitka liability-ga normal balance halka uu ka kordhaysaa waa credit-ka normal balance-guna markaa waxa uu noqon doonaa dhanka ay ka kordhayso oo credit-ka ah okay marka owner's equity iyaduna waxa ay ka korodhaa credit side-ka waxaana ay ka yaraataa debit side-ka normal balance-guna waxa uu noqon doonaa dhanka ay ka korayso oo ah credit side-ka marka drawing-ka isagu jira isagu waxa uu ka kordhaa debit side-ka waxaana uu ka yaraadaa credit side-ka normal balance-giisuna waa debit side-ka okay revenue baa inoogu xiga revenue-guna waxa uu ka kordhaa credit side-ka waxaana uu ka yaraadaa debit side-ka normal balance-giisuna waa credit side-ka expenses-ku iyaguna waxa ay ka kordhaan debit side-ka waxaana ay ka yaraadaan credit side-ka normal balance-geyguna waa debit side-ka okay marka intii buu inoo soo celiyey marka waa tan asset-ki liability-ga equity-ga revenue-ga iyo expenses-ki marka asset-ka iyo liability-ga iyo owner's equity-gu waa balance sheet elements weeyaan marka iyaga elements-kan waxaa laga helaa balance sheet-ka waynaga ugu soo qaadanay halka income statement-ka aynu ku soo qaadanay revenue iyo expenses marka income statement-ka markaan chapter 1 soo qaadanay revenue-ga aynu ka jarjarnay expenses-ka net income bay noo soo bixi jiray marka elements-ka income statement-ku lahayd waxay ahaayeen revenue iyo expenses balance sheet-kuna waxay lahayd asset liability iyo owner's equity haddaba markaynu inta shantaa eray haysano asset-ka iyo expenses-ku waxay ku kordhaan debit side-ka saddexda soo harayna debit side-ka way ka yaraadaan marka credit side-ka la joogo waxa ka yaraada asset-ka iyo expenses-ka ka yaraada credit side-ka saddexda kale liability equity iyo revenue saddexdaasina waxa ay ka kordhaan credit side-ka marka su'aashu waxay tahay debit side-ku kuweebaa ka kordhaya marka kororka debit side-ku waxa ka kordha la yiri increase in both asset iyo liability asset-ka iyo liability-ga labaduba waxay ka kordhaan debit side-ka bida waxa ka yaraada asset-ka iyo liability-ga labaduba way ka yaraadaan bal debit side-ka sida waxa ka kordha la yiri asset-ka waxaana ka yaraada liability-ga dhida waxa ka kordha la yiri asset-ka waxaana ka yaraada asset-ka waxaana ka kordha liability-ga markaas waa sidii noqonaysaa oo in asset-ka kordho liability-guna ay ka yaraato okay soo sheegta account-ku every normal debit balance marka normal debit balance-giisu waxa weeye debitka normal balance-giisu waa debitka marka waa kuwee marka waxay noqonaysaa asset-ka owner's drawing-ka iyo expenses-ka dhammaantood waxay leeyihiin normal balance ah debit side-ka summary of debit iyo credit rules marka waxaan eegi doonaa relationship-ka ka dhexeeya asset-ka liability-ga iyo owner's equity-ga marka tani waa basic contribution-keeni marka iyadoo expand oo la fidiyo weeyaan marka sidoo kale waxaa loo yaqaana tubular formula marka asset-ku waxaa inoo leeyahay liability plus owner's equity marka asset-ka wayn haysanaa debit side-ka iyo credit side-ka liability-ga iyo owner's equity marka owner's equity-ga waxaa kamid ah capital oo isagu plus drawing oo minus plus revenue dakhliga marka uu badiyaa owner's equity isaguna waa plus expense marka uu yareeyo isaguna waa minus marka mid kasta waxa uu leeyahay debit iyo credit side marka account equation-keenu waa inay noqotaa ugu dambeyntii mid balance leh waa inay isla ekaadaan marka inta badan debit iyo credit-ka waxaa loo isticmaalaa journalka insha Allah ku isticmaali doonaa halkaas ku soo gabagabeynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.